بسم الله الرحمن الرحيم دعوة halkan nagala socotaan waa barta TikTok Facebook YouTube Calas 24 post taariikhda caawa 9kii bishii 7 2023 qodobada wararka caalamkooda ugu daran waxa kamid ah oo ku maqli doontaan caawa maxaa ka soo kordhay safarkii madaxweynaha dowladda Ukraine Zelensky ku tagay magaalada Ankara iyo kulanku la qaatay madaxweynaha dowladda Turkiga madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan waxaa kaloo qodobada ku maqli doontaan madaxweynaha Joe Biden madaxweynaha dowladda Mareykanka oo saxay hubka sida baan waxa ugu maada boqolka dowladood oo caalamka kamid ah laga mamnuucay bombooyinka firdha oo dowlado badan ay ka qayliyeen qodobada kale ku maqli doontaan waxaa kamid ah afhayeenka dowladda Mareykanka ninka la yiraahdo magaciisa Chuck Sullivan oo sharaxay arrinkaas iyo madaxweyne Biden oo wareysi CNN-ka warar ku saabsan dagaalka Ukraine meesha marayo iyo qodobo kale oo ku xigi doona ayaan nahayna daawadayaal meel walba joogtaanba halkan nagala socotaan waa Calas 24 post daawadayaal dowladda Ruushka waxay soo bandhigtay shiishaanada khatara oo ka tirsan ciidamada la yiraahdo Red Army kuwaas oo dhawaan ka howlgalay gobolada dagaalka ka socda dalka Ukraine qaarkood sidoo kale ciidamadii Belarusia u guuray Wagner Group ayagana waxaa la dejiyay Belarusia xuduudaha la leeyihiin Poland iyo wadamada dhaca Baltica ayagoo halka qaylo ka keenay Poland iyo wadamada Baltica waxay codsanayaan in nuclearka la siiyo neetana maartay xuduudahaas ay ku xiraan silig iyo waxyaalo la mid oo kale si maartay ciidamada Wagner Group usoo gudbin madaxweynaha dowladda Belarusia asna wuxuu sheegay mar saxaafadda maansi wareysi in ciidamada qalabkoodii dhammaan loo dhameystiray ciidamada Wagner Group dhawaana lagu dirin doono ciidanka dowladda Russia hogaamiyihii Wagner Groupna uu ku sugan yahay dalka Russia magaalada Moscow sidoo kale dowladda Mareykanka waxay sheegtay diyaaradda drone ay leeyihiin inay bacsadeen laba diyaaradood oo ciidamada Ruushka ay leeyihiin dalka Syria halkaas oo dowladda Mareykanka sheegtay in diyaaradda halis la geliyay waxyaalo ay fahmi waayeen lagu furay ilaa hadda saacadeen wixii macluumaad ka soo kordhay warkaasna iyo diyaaradda arinteedana waxaan ku soo qaadan doonaa daawadayaal warka ku xiga hadii eebedbo diyaaraddan oo diyaaradaha maartay drone-ka oo halista oo bishimada fulisa oo si ay u sheegeen bacsada ururada argixisada ayaa Ruushka bacsaday afhayeenka dowladda Mareykanka ninka la yiraahdo magaciisa Sullivan Chuck Sullivan ayaa sheegay in hubka sida baan wax u gumaada dowladda Ukraine loo gudbin doono dhawaan wuxuuna sheegay arrinkaas inay saxday wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada Mareykanka ugu sareeya nuqulkaasna waxaan la wadaagnay aqalka cad madaxweynaha Biden oo wuxuu yiri ayaa saxay asagana markii loo gudbiyay wuxuu yiri baahi ay Ukrainiintu u qabaan hubkan sida baan wax u gumaada oo boqolka dowladood mamnuuca ka ah bombooyinkan hadii xataa ay meesha ku dhacaan qofku andisu dhimo waayo lug ama gacan ayaa gooda boqol dowladood oo dowlado badan oo midowga Yurub ku jira ay ka mid tahay dowladda Jarmalka iyo Ingiriiska iyo ayaa maartay hubkan mamnuucay daawadayaal hubkan hub halis ah nuclearka waxba kama dhaco castrol ayaa la yiraahdaa magaciisa waa hubka maartay bombooyinka firdha oo maartay dhaawac aan qofka xataa halis gelinaya Mareykanka hadda waxa moodaa in dagaalkii uu dab ku sii shiday dhinaca Moscow wax ilaa hadda oo hadal ka soo baxay iyo afhayeenkooda iyo dowladda ka aamusta arrinkan laakiin jawaab ay ka bixin doontaa si la filayo wixii loo gaaro maalinka bariyo isniinta iyo ilaa Talaadada ilaa Arbacada Moscow warbay soo saari doontaa hubkan waa bombooyin khatara hadii lagu hubiyo ciidamada Ukrainiinta waxay isticmaalan karaan sida maartay diyaaradaha oo kale waa laga ridin karaa artillery-ga ayaa sidoo kale lagu ridin karaa meesha ku dhacana uu firdhanaya asagoo ah sida gantaal yar oo kale laakiin markuu meesha ku dhaco boqolaal xabo bombooyin yar ayaa markiiba meesha ku qarxay oo firdhanaya daawadayaal hubkan sida baan wax u gumaada dowlado fara badan oo caalamka oo Afrika iyo Carabaha iyo UN-ka meel walba laga qayliyay madaxweyne Biden wuxuu leeyahay markii wareysi uu siiyay CNN-ka ayaa oo aad u kul mar laga weydiiyay madaxweyne Biden maxaad arrinkan iyo talaabadan iyo go'aankan madaxweyne u qaadatay wuxuu ku jawaabay madaxweyne Biden go'aankan waxaan la tashaday buu yiri saaxiibadaydu macnaha saaxiibadu wuxuu la jeedaa dowladaha xubnaha ka NATO iyo midowga Yurub sida daraadeed asoo aan macnaha aan ka helin aqlabiyad aqalka Congress-ka iyo kan hooseba labada aqalba ama shacabka ay Mareykanka arrinkan raali ka ahayn ayuu wuxuu la tashaday saaxiibo waxaan ogtahay madaxweyne Biden inay soo doortaan shacabka Mareykanka halkaasna waxaa ka cad talada in maartay madaxda Mareykanku ay si rabaan ka yeelaan sidoo kale daawadayaal sidoo kale wasiirka warshadaha iyo tiknoolajiyadda ee dowladda Turkiga Mehmet Fatih Kair iyo wasiirka
warshadaha istiraatiijiga ee Ukraine Alexander Kamish ayaa saxiixay heshiis u dhexeeya Ankara iyo Kiev. Turkiga iyo Ukraine ayaa kala saxiixday heshiis kor loogu qaadayo iskaashiga warshadaha istiraatiijiga ah ee diiradda saaraya abuurista diyaaradaha droonka, nidaamyada madaxa bannaan ee cilmi baarista iyo horumarinta matoorada wax soo saarka iyo dayactirka. Inta lagu jiro booqashada rasmiga ah ee madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ee Turkiga ku jooga, kadib kulamo kafool ah oo dhex maray madaxweynaha Erdogan iyo madaxweyne Zelensky Jimcihii. Xafladda saxiixa maamuuska oo ka kooban is-afgarad ku saabsan iskaashiga warshadaha istiraatiijiyadeed ee labada dal ayaa ka dhacday xarunta guriga Fahmit Istanbul. Maamuuska waxaa saxiixay wasaaradaha warshadaha iyo tiknoolajiyadda ee Turkiga iyo Ukraine. Labada wasiir ayaa u kala saxiixay sida laga soo xigtay xog ay heshay wakaaladda wararka ee Anadolu Agency. Borotokoolka ujeedadiisu ay tahay in kor loogu qaado iskaashiga u dhexeeya labada dal ee warshadaha istiraatiijiyadeed, iyada oo si gaar ah diiradda lagu saarayo UAVs, nidaamyada madaxa bannaan iyo matoorada R&D la yiraahdo, wax soo saarka iyo howlaha dayactirka. Kadib wadahadallo lama filaan ah oo ka dhacay Czech Republic iyo Slovakia dalka la yiraahdo horaantii Jimcihii, Zelensky iyo wafdigiisa waxay gaareen Istanbul, booqashadiisa rasmiga ah ee ugu horeysay Turkiga tan iyo markii uu bilowday dagaalkii Ruushka iyo Ukraine bilowday February 2022. Daawadayaal, warka ku xiga ayaan soo diyaarin doonaa. Afhayeenkii dowladda waxaan ku jirnaa Mareykanka Jack Sullivan waa ninka u qaabilsan US National Security-ga advisor-ka oo ah warbixintiisii wuxuu sheegay in dowladda Mareykanka haba yaraatee marnaba aysan ka hareen inay Ukraine garab istaagto kaalmo walba nooca doontana. Dowladda Mareykanka ay u diyaarisay hadalkii waxaa ka horreeyay madaxweyne Biden oo yiri hub aan siino waxay la mid tahay aid buu yiri, ama deen aan siino la mid tahay deeq maaragtay maaha. Marka waa ganacsi hubkan la lagu daldalayo, lacagta Ukraine baa lagu qoran doonaa haddii Ruushka qabsan caasimadooda Kiev. Marka waxaa dagaalka meesha ka socda daawadayaal maaha dagaal, waa ganacsi warshadeed baa socda. dadka badankooda ma fahansana warshadaha Mareykanka hubkiisa lagu gadaa. Taxi bearerska dadka Mareykanka cashuur bixiyaha lacagta bixiyaan way ku dulban yihiin. Hub baa waxaa lagu siinayaa Ukraine, warshadaha loo celinaya warshada dad gooniya iska leh. Marka dadka Mareykanku waxay dhaan dad madax bannaan, laakiin waxaa moodaa dalaan maaragtay xorriyad haysan. Diyaaradihiisa hubkiisa wuxuu siinayaa Ukraine iyo Israa'iil iyo dowlado kale maaragtay 10 sano ama 5 sano oo inuu dagaal qaadaa si warshadaha Mareykanka u sameeyaan dhaqdhaqaaq. Madaxweyne Biden wuxuu ku adkaystay inay waajib iyo muqadas tahay in la taageero Kiev. Anigu wuxuu yiri go'aan waxaan ku gaaray hubkan sida baan wax u gumaada nuclear-ka u dhigma in la siiyo Kiev ilaa 1 sano iyo bar muddo ku dhow bayna wadisanayeen. Anoo la tashaday saaxiibaday, sidaa daraadeed ma ka noqonayo go'aanka aan ku gaaray in aan hubkan ku bixiyo. Daawadayaal, madaxweynaha dowladda Mareykanka go'aankiisa waa cad yahay. Warka ku xiga ayaan soo diyaarin doonaa haddii ay badmo. Halkaan nagala socotaan waa Calas 24 Post. asxaabtiina la wadaaga sheer gareeya barnaamijka meel walba joogtaan.